kulan ciyaareed kaanu amid isaga hor yimaadeen laba naadi oo kala mataliyay jaaliyada Soomaalida ee magaalada Cape Town iyo waliba naadi ku ciyaarayay ciidamada booliiska ee xaafadda Istaran ayaa waxa soo qaban qaabiyay jaaliyada Soomaalida iyadoo ujeedka kulankan uu ahaa sidii isdhexgal buuxa looga dhex abuuri lahaa bulshooyinka Soomaalida iyo kuwa South Africaanka ah halka ciyaartu ka dhaceysay ayaa waxa aad soo buuxdaafiyay dadyow kala duwan oo ka kala socday labada shacab iyo madaxda jaaliyada deegaankaasi iyo saraakiisha ciidamada booliiska iyadoo ahaa kulankani mid aad u xiiso galiyay dhammaan daawadayaashii ka soo qayb galay ciyaaryahanada ku ciyaarayay magaca jaaliyada ayaa garoonka ciyaartu ka socotay waxay ku soo bandhigeen ciyaar ay aad u jecleysteen dhammaan daawadayaasha iyadoo ciyaaryahanada ay muujiyeen isfahan iyo isdhexgal wanaagsan taa oo ay u riyaaqeen dhammaan daawadayaasha ciyaarta daawanayay guusha ciyaarta ayaa waxa qaaday naadiga ku ciyaarayay magaca jaaliyada Soomaalida oo reegorayaal kaga badiyay naadi ku ciyaarayay magaca booliiska magaalada Cape Town markii ay soo ilaatay ciyaarta ayaa waxa warbaahinta qaranka la hadlay Cali Dhaarti oo ah gudoomiyaha jaaliyada deegaanka Istaran waxa uu sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin in kulankani ay la ciyaaraan booliiska magaalada isla markaana uu faa'iido u yahay labada shacab ee ku wada nool xaafadani sidaas darteed ayaan u qabanqaabinay kulankan in aan bulshada isdhexgelino ayna tusaan inaan wax nacayb u jirin saas ay naga codsadeen inaan kulan qabanqaabino annaguna waan ka aqbalnay sidaad arkaysiinna waa lagu guuleystay ciyaartii way socotaa hadda si xamaasad iyo xiiso leh ay ku socotaa ujeedada ka dambeysana noocaas waaye sida aad ogtihiin isboortigu waa aaladda loo adeegsado isdhexgalka bulshada iyo dhalinta nabadda sidoo kale sargaal booliiska ka tirsan oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa isna waxa uu muujiyay sida ugu faraxsan yahay ciyaarta uu maanta la qaatay naadiga jaaliyada Soomaalida ee ku nool magaalada Cape Town waxaana sargaalkani sheegay in wax badan ay ka qaban doonaan dilalka iyo dhibaatooyinka loo geysto Soomaalida ku nool wadanka South Africa. This match is organized for one purpose, which is to promote the relationship between the police and Somalian community in the area of Luandle. We have developed this relationship for the past 2 years now after the xenophobia attacks in our area. si kastaba ahaatee kulankan ayaa ku soo ilaaday jawi aad u wanaagsan iyadoo dadweynaha ka soo qayb galayna ay aad ugu riyaaqayeen waxaa la arkayay labada bulsho oo aad isu dhex fadhiya isla markaana laga dareemayo jawi isfahan ah waxaana ka mid noqonaya kulamo la doonayo in isfahan wanaagsan loogu abuuro bulshooyinka isla nool ee Soomaalida ku nool wadankan South Africa iyo shacabka Soomaalida shacabka u dhashay wadanka Koonfur Afrika Cabdullaahi Maxamuud Amiin Cabdullaahi Qorshe telefishinka qaranka Soomaaliya xaafadda Istaran magaalada Cape Town wadanka South Africa.